Barcelona ayaa u qabatay waqti kama dambeys ah Manchester United inay kula soo wareegto Frenkie de Jong. Madaxweynaha Barcelona Joan Laporta ayaa sheegay in kooxdu ay ku qasban tahay inay diiwaan geliso kooxdeeda xilli ciyaareedka cusub ugu dambeyn 13 August, isagoo Manchester United u dhiibaya waqti kama dambeys ah oo ay kula soo saxiixan karaan Frenkie de Jong. Tababaraha cusub ee United Erik ten Hag ayaa de Jong ka dhigay saxiixiisa mudnaanta leh ee xilli ciyaareedka, laakiin 2 bilood kadib uma dhowo soo xirigelinta xiddiga reer Holland. Waxaa lagu soo in ay Barcelona ay kula heshiisay adduun dhan 65 milyan oo geni, laakiin xiddiga ayaa weli ku qanacsaneen inuu u dhaqaaqo Old Trafford. Barca si kastaba ha ahaatee waxay ku sii jirtaa dhibaato dhaqaale inkastoo ay ku qarash garaysay lacag badan Robert Lewandowski, Rafinha iyo Jules Kounde. Sidaas darteed waxaa la fahansan yahay inay soo dhaweynayaan iibinta de Jong si ay uga caawiyaan isku dheelitirka buugaagta, sidaas darteed ay awoodaan inay diiwaan geliyaan saxiixyadooda cusub. Isagoo ka hadlaya bandhigga Jules Kounde, Laporta ayaa yiri waxaan sameynaynaa wax walba oo suurtagal ah si aan u diiwaan gelino saxiixyada. Waa inaan sameynaa 13 August ka hor, isagoo ku daray inuu ku rajo weyn yahay inuu sidaas sameeyo. Aan rajayno in horyaalka uu sidaas oo kale u arko. Kooxaha Arsenal, Chelsea iyo Tottenham ayaa dhammaantood doonaya inay heshiisyo waaweyn galaan bisha ugu dambeysa suuqa kala iibsiga, iyagoo dhammaantood hubsaday ciyaartoy magac weyn leh sida Marco Correa, Frenkie de Jong, Yuri Tielemans iyo Nicolo Zaniolo ayaa ah saxiixyadii u dambeeyay ee laga wada hadlayo. Dhammaan saddexda kooxood ayaa Leicester ka eegaya dhiirigelinta suuqa ee suurtagalka ah, iyadoo Wesley Fofana uu bartilmaameed u yahay Chelsea, iyadoo Thomas Tuchel uu doonayo inuu xaliyo difaaciisa kadib dhowr dib u dhacyo. Waxay u badan tahay inuu ku kici doono adduun dhan 80 milyan geni, halka Blues sidoo kale lagu soo waramayo inay isku diyaarinayso dalab ku dhow 71 milyan oo geni oo ay ku doonayso de Jong. Blues ayaa sidoo kale wada hadallo kula jirta Brighton sidii ay u soo xirigelin lahayd Marco Correa iyo sidoo kale RB Leipzig oo ay ka doonayso Josko Gvardiol. Waqooyiga London, kubad sameeyaha Foxes Tielemans ayaa weli bartilmaameed u ah Arsenal. Lucas Paqueta iyo Cody Gakpo ayaa sidoo kale weli xiiseynaya Mikel Arteta. Dhanka kale, Tottenham ayaa lala xiriirinaya James Maddison, inkastoo wararka ka imaanaya Talyaaniga ay sheegayaan in Jose Mourinho uu hor istaagay inuu dhaqaaqo Zaniolo. Goolhayaha Leicester Kasper Schmeichel ayaa qarka u saaran inuu u saxiixo kooxda Faransiiska ee Nice. 35 jirka reer Denmark ayaa tijaabada caafimaadka u mari doona kooxda ka ciyaarta horyaalka League 1 24 ilaa 48 saacadood ee soo socda kadib heshiis ay kooxuhu gaareen. Isagoo hadlaya isbuucan dhammaadkiisa, maamulaha Leicester Brendan Rodgers ayaa qirtay in Schmeichel loo ogolaan doono inuu soo afjaro 11 sano oo ku sugnaa King Power Stadium haddii uu helo koox cusub. Kabtanka Leicester Schmeichel ayaa udub dhaxaad u ahaa muddadii ugu guulaha badneed taariikhda kooxda, isagoo ku guuleystay horyaalnimada iyo dalacsiinta 2013 ilaa 14, horyaalka Premier League ee 2015 ilaa 16 iyo FA Cup iyo Community Shield 2021. Schmeichel ayaa qarka u saaran inuu maro wadadii uu maray ciyaaryahankii hore ee Arsenal, Juventus iyo Rangers Aaron Ramsey, kaasoo u dhaqaaqay koonfurta Faransa kadib markii uu burburay qandaraaskiisii Juventus. Warka ku saabsan bixitaanka Schmeichel ayaa kusoo beegmaya xilli la isla dhexmarayo James Maddison, Wesley Fofana, Harvey Barnes iyo Yuri Tielemans inuu u furan yahay albaabka Leicester ee ka bixista. Warbixinada ayaa sii kordhay markii Leicester ay ku guuldareysatay inay sameyso saxiixyo cusub xagaagan.